السلام عليكم أصحابتي كسو دوادا وراسي aad u gaaban oo hadana aad u xiiso badan waraysiga marti noogu noqon doono Sheekh Maxamed Ibrahim Kenyawi sheekha dhalinyarada sheekha marka wuxuu noogu daba yimid TikTok maantana waxaan ka wareysan doonaa TikTok sheekh ku soo dhaw barnaamijka aad iyo aad baan ugu dhawahay aad ma u mahadsantihiin sheekh magacaygu waa Sham waxaan rabaa waraysi yar oo gaaban kula yeesho si dhalinta ay u ogaadaan TikTok wuxuu yahay intaan waraysigan u guda galin goormay kugu dhalatay inaad samaysatid ciwaanka TikTok waxay ugu dhalatay runtii TikTok markii aan goobihii aan ka wacdin jirnay guriyihii golayaashii aan tagi jirnay masaajidadii markii in badan oo asxaabteennii ah rag iyo dumarba runtii aan ka waayay oo aan waraystay ayaa la ii sheegay in xero kale looga yeeray xeradiina runtii waxay noqotay xerada TikTok markaas ayaa waxay ugu dhalatay si aan ula saaxiibo ragga iyo dumarka Soomaaliyeed xeradaas in aan u samaysto cinwaan ila cinwaan la'aan lama gali karo xerada cinwaan kale aanu ku joognay masaajidada laakiin xerada TikTok cinwaan bay leedahay taas ayaa runtii ugu dhalisay si aan xeradii aan maaragta ugu heliyeelo dadkaygii sidaas ayaan u samaystay goorma samaystay ciwaanka cinwaanka 10 cisho ka hor ayaan samaystay culimada inta badan way ka baqaan inay imaadaan meeshii ku badan yihiin dhalinyarada oo ah social media waxaa loogu bartay masaajidada madrasooyinka inay ka wacdiyaan sidee kugu dhiiratay markan halkan imaado culimada runtii waxay joogaan waa goobahoodii caanka ahaa ee lagu yaqaanay ee loogu talagalay tacliimta laakiin waa laga tagay wax walba adduunka waa isbedelay dhalinyaradii masaajidadii iyo goobihii cilmiga waa ka fogaadeen goobo kale oo tarfiih oo damaashaad yani farxad ay u arkaan iyaga farxadna aanan ahayn ayaa looga yeeray ducaad kala soo baxday culimadeeni diinta iyo akhlaaqda dhiirigelinaysa maahan culimo kale oo akhlaaq xumida dhaqan xumida waqti dhuminta wax walba oo qiyamkii baabi'inaya ayaa soo baxay waxayna la soo baxeen aalad ka xoog badan aaladeeni annaga aan isticmaali jirnay annaga iska afkaasan ka qaylin jirnay laakiin aalada digital oo social media noocyadiisa kala duwan marka culimada runtii hadda laakiin way ku baraarugeen waxaan isdhihi karaa in aan noqday yani qofkii ugu horeeyay maaragtay aalada TikTok wacyigelinta ka bilaaba oo arka halka dhalinteena u sii qulqulayso marka aad baan ugu faraxsanahay sheekh TikTok marka la yiraahdo dhalinta muuqaalo shidan oo qurux badan soo galiyaan aad iyo aad si hadda waxa u bada dumarkii waxa argaysa gabdho ayagoo qaawan ayagoo heeso ku ciyaarayo waxa soo galinayo si isku saameyn kartiin marka waxaan ku qasbantay inaad daawatid aad iyo aad badhangaas ka waran ma daawataa wallahi dadka qaarkii dumarkan iyo waxyaabahay soo gelinayaan qurux ayay u arkaan maxaa yeelay Allah dhahaya wazayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum ibliiska wuxuu u qurxiyay hawlahooda ya gabadhan saddex cunug leh ama reer kale ama gabadhan iyo ninkeedii may soo wada galay oo baryaha ruuxaya runtii qof walbo insaan wuxuu garanaa inaanu qurxoonayn laakiin waa loo qurxiyay marka maadaama anagana diintii aan wadin iyo wacyigelintii waa ku khasbannahay anagoona runtii eegaynin in aan TikTok sidii hadda isaga duubayo kale inta isaga duuba aan ku tuuro meeshii runtii comments-kana aan akhriyo comments-kana meel kale gali maayo meeshaydan galaya oo comments-ka akhrinaya hadba natiijada iyo miraha iyo daawadu u saameysayna halkaas aan kala socon karaa yani kuma khasbani in aan isruuxooda daawado dhibaatada leeg baad kala kulantaa bulshada markaas ku jirta TikTok alla dhibaato badan baan runtii kala kulmay maxaa yeelay meel walbo aan tagay marka hore waa la soo dhaweyn jiray waana lagu farxi jiray laakiin maalmihii hore waxaan arkay iyadoo la iina xayaba anigii oo anigiiba noqday victim la soo maaragtaa habaabiyay war marka xal yiri sheekha war yaa wala oo sheekha soo galiyay xeradan yaa war sheekha maxaad u soo galiseen maxaad u soo khaladeen eeg reer TikTok waxay ogsoon yihiin xeradan xero ibliis inay tahay iyagii inay ku dhexlunsan yihiin way garanayaan maxaa yeelay kii wanaagsana ee ku soo biiray u naxayaan soo ma garan waa sida ahlu cadaabka oo kale dadkii cadaabka galay oo kale oo u soo naxayay dadka war anaga meesha ku gubanay maxaa idin keenay marka runtii markii ana
waa u adkaystay caqabad walba waa maray indhahan isku qabsaday maxaa yeelay meesha waxa ku sii hoobanayo ku dhimanayo waqtiga uu uga lumayo qiyamkoodii ku weynayo waa gabdheeni quruxda badnaa gabdheeni qaalisanaa qiimiga badnaa wiilasha dhalinyarada ahaa dadkii dee horumarka wadanka u keeni lahaa diinta u keeni lahaa marka runtii indhahan isku qabsaday wax walbo aan maro waan galay laakiin mirihiisa degdeg ayuu ilaahay ii siiyey maxaa yeelay qalbigayga wanaagsanaa camalkaygana iyo hadalkaygana waa ka run sheegayay aad bay markii dambe ii soo dhaweeyeen oo ay yiraaheen sheekh waqtigii la rabay ayaa TikTok soo gashay maantana runtii waxay i gaarsiiyeen like aanan ka filanaynin 10 cisho in nus milyan aan dhaafo 600,000 oo tiradii kalena ma aragtay followerska 100,000 ay ku sii socdaan aad iyo aad baan runtii ugu farxay waana wax igu dhiirigelinaya inaan halkaa ka sii wado sheekh muuqaalada aad soo gelisay dadka inta badan way daawadeen oo dhalinyarada ugu badan tahay wax feedback oo kugu soo laabtay ma jiraan oo dhalinyarada inta badan ku waantoobeen feedback ugu horeeyo waa horta like ay siiyeen 600,000 ee 1 milyan ku dhow iyo de followerska faraha badan ee soo raacay feedback kale commenteska markaan akhriya dadkii uu heesaha saari jiray ayaa soo ooynaya oo love ka bixin jiray oo maarta comment ayaa soo ooynayo dhahaya emoji oo oohinay ii soo dirayaan oo ay leeyihiin waa ka xunnahay waan dabaabnay wixii yare aan ku jiri jirnay waqtigeena haddaan ka celinayna sheekh noo soo duceeya qaar waxay leeyihiin accountiga dhan waa wada xirayna waana dadka ugu fasahaadka badnaa waay saa daawudi baa saameysay marka waxaan leeyahay anigu kaliya baa ahay meeshaas wax kama qaban kari culimada iyo ducaada waxaan ugu baaqayaa magaca kule ummadeena Soomaaliyeed waa ubadkeeni waa raggeeni dhalinyaradeenii aan halkaas uga daba tagno aan si qurux badan u waanino ugu dambeyn dhalinyarada maxaa ku waanin leed dhalinyarada waxaan ku waanin lahaa runtii akhlaaqda iyo qiyamka runtii in loo soo laabto diinta in loo soo laabto waxaan aad duubaysaan ama isruuxa ama qaawinaanshaha ama jeega xiirka ama de hadallada ama heesaha gaalada la saarayo waxa waqtigan lagu luminayo iyo ikhtilaadkan isku dhex jirka ah waxaad ogaataan waa wax idinka haraya saacad walba waad ku dhiman kartaan qofkan sidoo ku dhintaa lagu soo saaraa hadaydan sidan ku dhimanin oo xataa inta si caadi u dhimataan waxaan idinka haraan waa idinku cadaabaya ilaa qiyaam saace marka waxaan leeyahay yaani khaatim xumaha ku dhimanina adduunyo aakhir waa kala badan tahay ilaahina ku xirnaada diintiina u soo noqdo akhlaaqdiina qiyamkiina TikTok iyo social media ummadaha lagu waaniya akhlaaq baa lagu dhisaa aan diinteeni iyo akhlaaqdeeni dalkeeni bahalkan ku dhisano waa nicmo ilaahay aan ku shukrino asxaabta ciwaankaaga u sheeg TikTok ciwaankayga runtii waxaa lagu soo qori doonaa meesha lagu soo qori doonaa waa page-kayga Maxamed Sha Ibrahim Kenyawi profile-kayga Mohamed Ibrahim Ali TikTok-kayga waa Sha dhibic Kenyawi Instagram-kayga waa Sha Kenyawi oo wada socotoon dhibic lahayn iyo Snapchat-ka oo ah Sheikh Kenyawi 20 cinwaankan waad ka arki doontaan hadduu ilaahay ha koobinina allah idin barakeeye man ghashana falaysa minna qofkeena ghasha been abuur sameeya naga mid ma aha aad baan idin jecelahay reer social media usbuuci meeqa muuqaal baa soo gelisaa usbuuci maahane maalin walba 3 muuqaal ayaan sameeyaa maadaama wuxuu gaaban yihiin daqiiqad yihiin maalin walba hal daawo ah oo laakiin 3 nooc ayaan geliyaa culimada maxaad ugu baaqi lahayd culimada waxaan ugu baaqayaa culimoy hasugina goobihiini iyo guryihiini iyo golayaashiini ee dadka ku wacyigelin jirteen in idinku yimaado marnaba ducaad kala soo baxday oo digital TikTok waxa la yiraahdo isticmaalaya dhalinyaradii waa idinka wada shubtay intaydan hadhow xero maran aydan ma aragtay aydan la kulmin dhalinyaradii ka dabagala soo gala social media leeyahay asxaabta inta soo gabagabeynayna barnaamijka waxa martiin uga hashay Kenyawi Sha dhibic Kenyawi waa TikTok-giisa follow comment like inta wadikan laga rabaa waana maasantin sheekada maasantaa aad kaga mahad celinaya